Asalaamu calaykum, magacayga waa Mawlid Goobaan. Waxaan sharaxaynaa cashir aan hore u sharaxay kuna baxay luqadda Ingiriiska. Waxaan u turjumaadnaa ama aan sameynaynaa anigoo ku sharaxay luqadda Soomaaliga. Cashirkaasito wuxuu ahay ama kana sameynay noqon doonaa maadada ama protocolka la yiraahdo RIP, Routing Information Protocol. Waxaan sameeyay markii hore aan sameynayay hal system aan ku sameeyo markaan configuration ka sameynayay, laakiin waxaan isku dayay haddii la yiraahdo laba waji inaan u sameeyo ama two different way aan u configure short way iyo normal configuration-ka. Marka hadda waxaan soo qaadanaynaa laba router iyo laba switch iyo 4 computer. Okay. Laba switch aan soo qaadanaynaa. Okay. Laba computer na soo afar computer na soo qaadanaynaa. Okay. Halkan intaan dhigaa marka connection ayaan ku xiraa. Waan siinayna kan fast internet, kana fast internet too. Okay. Port 24 aan siinayna kana switchka routerka meeshuu kaga dhigay fast internet 0. Waxaan siinaynaa waan siinaynaa asigana fast internet 1. Kana waxaan siinaynaa 2. Okay. Switchka waxaan siinaynaa 24 port 24 kana 0 fast internet 0/0. Okay, waxaan sameynaynaa marka labada router aan isku xiraynaa. Serial port waxaan siinaynaa 00 ana serial kan 00 oo ka dhiganaa. Okay. Markii intaas aan marayno waxaan sameynaynaa waxaan u alifaynaa marka IP address ka waxaan ka dhigaynaa 192.168.10.2. kan waxaan ka dhigaynaa .3. Okay. Inta waxaan dhigaynaa kii network inta soo galaya oo asiga noqonaya 1. Good. Okay. Kana waxaan sameynaynaa IP address 172.168.1
172.168.1.1.3. okay, marka intaan haddana waxaan dhigaynaa connectionkii labaad networkan ahay one waa intana. okay, good. waxaan kugu sheegay inaan different way u configureynayo. computerada sameyno kabacdi usoo noqonaynaa 192.168.10.2. default gatewaygiis wuxuu noqonaa one uu noqonaa. good. saas waa way waaye waa hadda waan sameeyey, laakiin waxaan isku daya haddana waa ka titiraa wadada sida kale aan tusaa marka oo okay. kana okay. inuu si camal u furnaado bay lahayd oo clear ay noqoto. okay. 3 fast internet 0 قيمة كمان لنا كنا قلنا مركب كويك استوي واكنا لكو configurena easy شدنا الله. اوكي هذا الحلان هاي setting كان تجينا akadhigana R1 return akadhigana nvram kan ku save gareynaa marka save gareynay kabacdi waxaan tegaynaa waxaan tijaabinaynaa inuu routerkan gaarayo computerradan waa ogahay inay isgaarayaan laakiin waxaan tijaabinaynaa inay computerkan gaarayo networkgeeda. okay oga isgaarayaan haddaan si kale idiin tusana sida wax u sameynaya packet-ka sida u travel gareynaya idin tusaa. markaasa routerka u tagaa waxaan sameynaya computerkan aan ku sameynay oo tagaa and then
kuwaakaas waxaa tagay routerka automatic markaa ka dhigta saas u noqdaa meeshuu ka yimid jawaabta soo siinaa kasa okay waxaan sameynaynaa marka gacantan kale aan sameynaynaa ama networkan kale fast internet soma waxaan gelinaynaa 172.16.1.2 setting kana gey okay waa qaadiyay kana haddana tegaynaa sidii aan maya harare kan ina caadi idiin tuso maadaama aan kan si kale idiin tusay kan caadi u gelinaynaa marka okay intana gey 172.1.3 subnet malastic automatic asa u qaadanaya haddana inta waxaa gelinaynaa 172.16.1.1 okay good waxaan sameynaynaa serialkan sameynaynaa sida la socotiin cashirka aan sameynayna waxa waaye router information protocol labadana aan ku sameyn karnaa static ama router static hore aan u sameynay rebna hore aan u sameeyay laakiin hadda af Soomaali ahaan anaa ku sharaxaya reb aan sharaxay staticna hore aan usoo sharaxay marka waxaan leenahay rebkan tegaynaa horta waxaan ku fikir gareynaynaa intaadan rebka tegin kii serialka waxaan ka dhigaynaa waxaan ka dhigaynaa 99.99.99.1 okay waxaan sameynaynaa clock rate-kaneeto DC-ga any number adjust garaysan kartaa laakiin waxaan qaadanaynaa 64 64,000 tonan aan leeyahay baron okay aan tegaynaa settingka si aan u save garayno nvramka inaan ku save garayno waay okay kana haddana tegaynaa sidoo kale haddana soo sameynaynaa serialkan tegaynaa kan uma baahno inaan gelino clock rate marka no set aan leenahay waxaan leenahay 99.99.99.2 waa shideena marka waa oboy marka statuskiisa abuu noqday waxaan tegaynaa marka settingkaan tegaynaa nvramkaan ku save garaynaynaa wow laakiin waxaa idin tusaa hadda sidii oo caadiga ahayd oo easy way idin tusaa laakiin waxaa haddana idin tusaa markaan rebka gelinayo ama sidaana kuwada hore u aragteen waxyaabihii normal configurationkaan samey jiray okay dadka qaar waxay iga soo codsadeen marka inaan ka dhigo meesha ay black ka tahay inaan white ka dhigo backgroundka fartana green meesha ka tahay
aan black ka dhigo. Okay, good. Fiiran ku save gareyn. Okay, markaan meeshaas marayno waa interface-yada app waaye. Interface-kaneeto 2 ka dhiganaa, router 2 ka dhiganaa. Labadan router waa isgaarayaan, laakiin network routerkan networkan ma yaqaano. Routerkana networkan ma yaqaano. Okay, marka waxaan sameynaynaa horta aan configuration aan ku sameyno interface-yada. Interface-kaneeto waxaa qaadanaa 172.168.1.1. Okay, fiiran ku save gareyn. Okay, markaas iyana fastan green all. Marka hadda haddii aan tijaabino labada router waa isgaarayaan, laakiin labada network ma isgaarayaan. Router 1 router 2 waa gaaraa success. Sida uu u sameeyay haddaad rabtiin waxaan ku tusaa capture forward automatic. Okay, good. Tusaale waxaan tusaa marka inaysan isgaari karaynin labada network aysan is aqoonin ilaa la isticmaalo protocollada aan ii sheegayo sida ama ribka ama statiga OSPF-ka iyo wixii lamid ah. Markana fail oo soo dhahay again aan tusaa haddana fail oo dhaca unless aan geliyo ribkaas. Okay, waa kaas aan ii sheegay waa uu diiday. Okay, hadda marka waxaan sameynaynaa marka ribka gelinayna marka normal configuration oo gelinayna markaneeto ama sida quick aan sameyn hadii kale quick aan sameynayna hadda. Okay, waxaan leenahay 192.168.1.1. Okay, geli. Okay, waxaan leenahay 99.99.99.1. Sina aad setting ka tag save garey. Kana hadan tagin asna ribkana gey 172.168.1.1. Okay, haddana waxaan leenahay routerka kore aan leenahay inaan barno marka wadadii uu mari lahay 99.99.2 oo ku xirayna marka nagey settingka ramka ku duub. Higo marka hadda way is yaqaanaan data maadaama isdiidayeen waxaan rajeynaynaa is oggolaadaan.
sameynayna marka kan ma yaqaana horta yes wuu yaqaanaa kan ma yaqaanaa okay cilada jirta marka ciladaas inaan ogaano waxay tahay okay let's go to the show run good show run good show IP route okay ribkan configure si fiican loo configureyn ribka inta ma sheego hadii ribka uu meeshan geli lahay configurationkiisa saxa lahay uu yeeli lahay marka waxaan sameynaynaa kana fiirinaynaa haddana ribka oo yaala inkana show IP route ribka uu sameeyey kan waa kana r u taagan rib inta aad tusaa marka kana rib okay marka waxaan weydiinaynaa sababta uu ninkan u diiday inuu protocol-kan qaato okay ka bixinaynaa haddana okay haddan gelinaynaa marka 172.16.11 marka 11 add haddana 99.99.99.2 okay let's go to the ribka ku jira to show IP route
okay waxaan isku daynaa manual inaan u gelino waxaana aan ka saarno router rep version 2 network 172.16.1 network 99.99.99.2 exit to show IP route faster صح واye serial صح واye marka cilada markaan baarnay waxaa isleeyahay kan fiirino gateway default gateway malahan 68.10.1.2 okay good kan leeyasna asagana malahan 192.168.10.3 way dhacdaa ciladaha qaar inaysaan u yimaadaan haddana kan aan fiirino malahan asna 192.168 no 172.16.1.1 okay kan aan tagno okay kan good waan tijaabin inay isgaarayaan haddii ay isgaarin waxaan sameynaynaa inaan sii hubno waaye labada router aan marka baaraynaa computerada waa habeynay okay computerkan maxaa qaldan aan leenahay showroom interfacekan sax waaye okay root kana qaldan marka okay router repkan gey kana qaladka meesha ka yimid remove ده kan lena marka 192.168.10.1 okay hadda marka okay setting save ده marka kana maxaa qaldan I hope إنه صحيح كان ربكا إجي
asagana inta ka saxno 172.16.1.1. Good. Okay, let's go to this router if we can pinky network asset or trigger. Okay, and then I ping 172.16.1.3. Yes, we got again 5.5. Good. Okay, let's try now. الذين بحنا مصودينا وملينا. Okay, good. I can't get us now. Next year, WR. Pink and then our 192.168.10.2. Okay, ciladaan way dhacdaa sometimes computerada kala duwan. Computerada aan tan bedelin maxaan fiirinayna horta kan uu gaaraa laakiin kaas sababta u gaaraynin habeen xasab qabsata troubleshoot noocan oo kale pink to daasna to hadna gaaraa kana soo dhaw marka asagana gaaraa marka waxaan sameynaynaa computeradana bedelaynaa. Okay, kana bixi computer aan soo qaadanaynaa. Computerkan aan soo qaadanaynaa. Okay, serialkan ku xiraynaa ama boortiga ku xiraynaa. Fast internet 1, fast internet 2. Okay, computerada marka aan sameynaynaa. Okay, good. Computerkan kala sameynaynaa isna 3 way. .9.9.9.1 we got a good to we got
gaara. Yes. Okay, waxaan leenahay haddana 172.16.1.3 oo kana yes. cilada marka waxay ahayd kombiyuutarada ahaayeen. markaan kombiyuutarada bedelnay hadda aad ay isu gaaraan. kana kasoo bixi karaynana pink 192.168.10.3 oo oo PC-gana code gareersiga si aad ogaatiin waxaan sameynayno. Okay, let's go back to the pink and do now. Yes, I got it. marka hore waa diidiyay laakiin waa gaaray hore ku gaara automatic. Okay, number 2 asna waa gaaray. troubleshooting kana qabsaday waxa waa macluub inaad ka fiirisid waay. ka xasanayna marka protocolka isticmaalna saan u aragno show IP route waa kana protocolka aan isticmaalno oo isku xirayay networkyada kala duwan si ay u wada hadlaan. Okay, intan waa soo dhig marka okay haddana waxaan leenahay show IP route show IP route waa dhahna show IP protocol. Okay, hakana distance factors kiisi waxaan ya inta uu meesha maraya. Okay, marka asigana waa qaadanayna waxaan dhiganayna inta kan kor usijinayna. Okay, kan aan tegina haddana waxaan leenahay show IP protocol 18 minutes oo inta isku qaadanaysa inuu ku wada hadlaan 18 second. kana wuxuu ahay 13 second. Okay, waxaan leenahay route martan tus show IP route. Okay, route mara kana direct connected way kan labadan direct connected way routerka uu tagay oo kan ah
tanka kana wuxuu sii dhexmaray VA kana wuxuu sii dhexmaray oo ku leeyahay network aneto oo inta idin dhigaysiina si aad u fahamtiin show run kan هواي كان هواي تو كان واقنا تو بيسا مشو مرواقنا انتو واقنا مشو مركو وصوب حي انت كصوب حي كانوا صوب مرة كانوا صودا وانت marka dadku maray ku sheegaa kana 1 second isku qaateen kana ma isku qaateen 12 second okay waxaan rajeynaa casharkeena fahamteen maadaama hore aan usoo sharaxay wax walbana ay clear yihiin table data level sidoo kale information kiisa كنا عشنا وديننا ما شاء الله table كيسة وسميتها show IB rep database سمرقيسي واحدة نقوشها marka aan waa u jeedin wax walba clear waaye routerada waa isgaarayaan computerada waa isgaarayaan protocolka ay marayaan waa rib version 2 waaye marka waxaan u maleynayaa in ay wax walba clear yihiin casharkeena meeshaas uu ku egyahay waxaan rajeynaa inaad si fiican u wada fahamteen wixii doubt kaga jirana ama shaqada kaga jirana emailkayga waxaa waaye mauludkuba@gmail.com waa ila soo xiriiri kartaa ama comment igu reeba youtube channelkayga marka intii ka horeyso waxaan kaga tegaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iga iloobina subscribe-ka like-ka share-ka si videoyaal badan oo waxtar leh aan idigu soo geliyo idinkana ku faa'iidaystaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.